safety on the road badqabka wadada part 2 qaybtii 2 Sergeant explained waxay sharaxday that some other causes waxyaabo kale oo sababa include inay ka mid yihiin ama ay ku jiraan overspeeding xawaaraha zaa'idka ah and overloading iyo xamuulidda gawaarida tanka zaa'idka loo soo xamuulo then kadib there are waxa ah ama jira vehicles gaadiidyaasha kuwa shaaglayaasha ah that are in poor mechanical condition ku sugan xaalad makaaniko oo liidato what about ka waran cyclists kuwa baaskiilada wada and pedestrians iyo socotada ask waxaa weydiiyey cali one of the pupils mid ka mid a ardada ah I walk to school waan u lugayaa iskuulka every day maalin walbo and sometimes marka qaar it's dangerous waa halis ama khatar on the road wadada you are right waad saxan tahay said waxaa tiri the sergeant yaa tiri children caruurta oven badana walk waa ay ku lugayaan on the road wadada or cross waxay gooyaan without the help kaalmo la-aanta of an adult qof weyn oo qaangaar ama baaluq ah if there is a pavement haddii uu jiro marshabiyeed oo meesha ay dadka maraan you should always had iyo jeer use it aad isticmaashaan if there is no pavement haddii aysan jirin wax marshabiyeed ah oo meelaha dadka ay maraan baa laga wadaa you should walk waad ku socotaan along the side dhanka ama dhinaca of the road ee wadada cross waxaad ka goysaan a busy road wadada mashquulka ah at a zebra crossing ee meesha dadka ay ka gooyaan ama dildiilmaha goynta leh damir farowga but laakiin there are no zebra crossings kama jiraan meelaha laga gooyo in our village tuuladanada said waxaa yidhi cali ayaa yidhi then kadib you must cross thanks alif la kordhabe alif loos dhabe alif la gode